Elvis Media Production. caawa galabta waxaa si kadisaan lagu yimid kormeer oo madaxweynaha anigu ku guda jirnay shir maalmeedka caadiga ah oo shirka amniga guud oo ka wada hadlaynay habka loo xoojin karo amniga iyo wada shaqaynta bulshada madaxweynahana si kadis buu nagu yimid wuxuu maxaan ku radaa la dardaarmay saraakiisha oo howlgallada ku jirta wuuna kala dardaarmay in bulshadana lala shaqeeyo howlgalladana la xoojiya bulshadana dibna noo soo xasuusiyey maadaama ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu yahay hooyada ciidamada qalabka sida inaan anaga noqono tusaalihii dowladnimada intaasay tumuuday madaxweynaha uu nagala dardaarmay maanta si kadis uu nagu yimid intaasoo shirkana ku saabsan wuxuu dib noo soo xasuusiyey horta kow anaga inaan nahay ciidan laga soo asaasay bulshada inaan nahay hooyada ciidamada qalabka sida oo anagana laga doonay inaan tusaale u noqono dhammaan ciidamada qalabka sida xasuusintana waa shay qaali oo ilaahay baa dhahay ina dakira tanfacu lmu'miniin marka shirka maanta wuxuu noogu imaan si kadis inuu dib nagu soo xasuusiyaa aad uu noogula dardaarmay habdhaqanka iyo bulshada wuxuu sidoo kale noolaga dardaarmay inaan aad ka fogaano musuqmaasuqa iyo in tilaabo adag laga qaadi doono saraakiishii askarta uu qabto musuqmaasuqa iyo xadgudubka bulshada arrintaasna mar labaad wuxuu xoojiyey bulshada marka fariintuu ka waday bulshada madaxweynaha uu yahay ayuu maanta nala wadaagayay waxa keenay inuu nala dardaarmo shirkana si kadis noogu imaadana taas baa horta kow ka ahayd wuxuuna aad sidaan u sheegaba noogula dardaarmay inaana lagu xadgudbin bulshada anagoo sugidda amnigana ahmiyadda koowaad siineynana in maxaan ku radaa bulshadana loo naxariisto loona fududeeyo intaa u fududeyn karno annagoo ah ciidankii laga soo aasaasay bulshada